السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كسو دوادا برنامج كلو حيصة له وحان سيقارو سو دوين إن يددك إنو عصب سبسكرايب قرية channelك. الله أكبر الله أكبر. qof walba bilaadan marka uu si seexanayo ma jecla inuu ku riyoodo riyooyin xunxun oo argagax ku reeba wuxuu seexdaa isaga oo rajeynaya inuu ku riyoodo riyooyin qurux badan oo naftiisa ku raaxaysato balse waxa jira dad badanaaba ku riyooda riyooyin xunxun oo cabsi ah isla markaana argagax ku reeba mararka qaar waxa dhacda sidaan wada ognahay inuu qofku hurdada ka boodo riyooyinkaasi argagaxa iyo cabsida badan waxa kamid ah inuu qofku riyadiisa ku arko masas amba abeesooyin haddaba tafsiirka riyada maska lagu arko waa ay kala duwan tahay waxayna ku kala duwan tahay oo loo eegaya hadba qofkii ku riyooday qofka ku riyooday ma gabadhba mise waa wiil qofka miyaa riyada maska ku dilay mise maska ayaa qofka dilay tafsiirka riyada maska aad ayuu badan yahay haddaba waxaynu soo bandhigaynaa wax kamid insha Allah haddii uu qofku ku riyoodo masas badan inay gurigiisa kula nool yihiin balse wax cabsi ah haba yaraatee uusan ka qabin gurigiisa waxa kula dhex nool dad ehelkiisa ah oo diinta ka soo horjeeda isla markaana waxay rabaan iska sameeyo oo hawadooda iska raaca qofku haddii uu ku riyoodo masaska biyaha ee badaha ku nool taasi waxa ku tusinaysaa khayr iyo maal badan qofka isagoo riyada ku jira haddii uu mas furaashkiisa ku hoostilo waxa suurtagal inay xaaskiisu geeriyoonayso haddii uu qofku riyadiisa ku arko mas gurigiisa kasii baxaya ehelka guriga degan ayaa safar u baxaya safarkaasina wuxuu noqon karaa mid ay meel ku tagayaan amba mid ay adduunyada kaga tagayaan yacni dhimasho qofka haddii uu riyadiisa ku arko mas meyd ah qof cadowgiisa ah ayay islaynayaan wuuna ka guulaysanayaa haddii uu riyadiisa qofku ku arko isagoo maska 3 meelood kala jarjaray waxa dhici karta inuu xaaskiisa 3 dalqo ku furi doono haddii uu qofku ku riyoodo isagoo shakalkiisu isbedelay oo isu bedelay qaab maseed qofkaasi xaalkiisa ayaa si xun isu bedeli doona wuxuuna cadow ku noqon doona muslimiinta haddii uu qof reer la ku riyoodo mas yar oo dhala waxa ay dhali doonaan wiil haddii uu ku riyoodo mas gurigiisa u soo galaya wuxuu saaxiib la yahay qof xun oo cadow ku ah riyada abeesada horta nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu nagu amray inaan abeesada meel walba ku aragno aan dilo haddii uu qofku ku riyoodo abeeso weyn isla markaana madow amba kubre amba mas weyn waa gabadh cadow ah oo xaasidad ah amba waa shaydaan wallahu a'lam wabillahi tawfiiq Allahu akbar Allahu akbar